xusuusnow halkan qofkan iyo ninkan ma aha keliya taageere mana ahan qof yar yimid balse waa xusuus ay qoodii dunida isku dayeen in ay gubaan laakiin si walba la isugu dayo xusuustu ma ahan mid duwooda ee waa mid jirta ilaa iyo inta dadkeedu ay jiraan ninkan wuxuu u istaagay sidii tiir gacantiisa kor ayuu u taagay balse ma ahan keliya taageere kubad daawanaya indhihiisu waxay xabaarsanaayeen xusuus ka weyn ciyaarta hortiisa ka socota dadka qaar waxay u arkayeen qosol iyo layaab laakiin isaga gudihiisa waxaa ka socday taariikh la isku dayay in la dafiro maskaxdiisana waxaa ku soo dhacayay magacaan weligii ka bixin qalbiga qaaradda waa Patrice Lumumba wuxuu ahaa wiil ku dhashay Congo dhul hodan ah iyo dad sabool ah gumeysigu wuxuu cunay dahabkoodii maskaxdoodii iyo karaamadoodii Patrice Lumumba markuu uu hadlay dadku waa ay tooseen halka gumeystihiina uu gariiray sanadii 1960 Congo waxay heshay xorriyad maalintii xafladda xorriyadda isagoo aanu xabsi ku jirin Lumumba wuxuu hortagay boqorkii Belgium oo ahaa gumeystihii ay ka qaateen xorriyadda wuxuuna yiri hadallo gubay qalbigiisa kaliya asaga ma isu gumin waxay gubeen cid walba oo dabadhilif u ahayd shisheeya wuxuuna sheegay in xorriyadda aan siinin ee ay ku keensadeen qore caaraddiis kumanaan Kongees ahna ay ugu hooseeyeen dhulka ayagoo u dagaalamaya xorriyaddana ay u dhinteen laga bilaabo xilligaas Lumumba waxaa loo dejiyay qorshe lagu qaarajinayo iyadoo loo arkayay in uu yahay mid bulshada ku abuuri kara wadaninimo iyo la dagaalanka gumeysta xorriyaddaas ma aysan ku farxin quwadihii waaweynaa Congo waxay lahayd macdan uranium diamond iyo dahab lamana rabin in nin Afrikaan ah oo si madax bannaan u maamulo Lumumba waa la khiyaamay waa la xiray waa la ceebayay ku dambeysna waa la dilay haddaba aynu isla eegno habkii loo dilay Lumumba 17 Janaayo sanadii 1961 Lumumba iyo labada saaxiibadiis ah waa la kaxeeyay meel cidla ah ayaana la geeyay waa la jirdilay kadibna rasaas ayaa lagu furay Lumumba si gaar ah jirkiisa xitaa waa la jarjaray oo lama rabin wax raad raac ah ama wax taariikh ah in uu ka harto waa la kala jarjaray acid ayaana lagu shubay si aan wax raad ah uga harin laakiin hal shay ayay ilaaween oo ah in aysan taariikhdu isqarin si walba la isku dayo in cagta hoosteeda la geliyo markii warkii sheegayay dilkii Lumumba oo gaaray qaaradda Afrika dad badan ayaa ka dhiibiyay dadkaasna waxaa ka mid ahaa Soomaalida waxayna dareenkooda ku cabireen hees oranaysay Lumumba mana noola mana dhiman labadaas midna lagu hayo haddaba saaxiibayaal guud ahaan barnaamijkeeni maanta ayaynu uga hadlaynay taariikhda Patrice Lumumba halkaas ayaynu ku soo koobaynaa inkastoo aynu muuqaalo badan soo gelin warihii ugu dambeeyay ama bili ugu dambeeyay haddana waxaan isku dayaynaa in aan dadaalno oo aan sameeyno mowduucyo badan laakiin taas idinka ayaa nagu dhiirigelin kara haddaba haddii aad nala soo gaartay ilaa iyo halkan fadlan inagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran assalaamu calaykum waraxmatullaah